عليكم ورحمة الله وبركاته. لاندي ريال وإن سلامي السلام الله عليكم تعالى لوبا ميلا جوجتين هذي سوح كوتا هذي هبن كوتا هذي مالين كوتا هاي أهدي أبن كو سلام يا سلام قويد بن كولا يا سلام شرف بن كولا يا هاي سلام كليا لعبة أصحابي ما أنت برنامج كينا وقت إنك مدليه وحكو سامسين هاي عذر كان إن بانديميكا أو لو يقانو كورونا فيروس إلهي naga qabto subxaana watacaala ilaah baan ka magangalay marka waxaan ka hadlayaa maanta barnaamijkan uu ku saabsan yahay pandemican si u imaaday runtii dhibaato badan buu keenay oo laga wada sheekeyn karin runtii hadda u fiirisid si waliba maskaxiyan inta qof ma aragtaa cudurkan ku dhacay oo ku dhintay inta qof oo ma aragtaa shaqo la'aan noqotay inta qof oo ma aragtaa dee adduunkii oo dhan buu ma aragtaa ka dhigay cripple basically adduunkii oo dhan buu ma aragtay curyaan ka dhigay marka waxyaalaha qofka uu samayn karo maadaama ma aragtaa waqti lagu jiro waqti aad u adag weeyaan waqti ma aragtaa very difficult runtii weyaan oo dadka bini'aadanka isolation weyn ku dhacay dadkii baa kala yaacay dadkii baa ma aragtaa sidii awal isku soo bixi jiray oo human interactionskii oo dadka bini'aadanka ay isdhexgalayeen oo la is salaamiyey oo ma aragtaa maasha allah iska ahayd ma jirto because cudurkii baa laga baqayaa I know dad badan baa jiro waxaasi dheg buu dhigan oo iska sameeyaan oo ma aragtaa arooskoodii iyo adduunkoodii waxoodii siduu awal horay u wato dad badanna way jiraan laakiin u dadaalo oo doonaynin ma aragta cudurkaas inuu ku dhaco sababtoo ah dadaalku wax fiican weeyaan diintan way ku amraysaa you know waxa dadaal dhinacaaga ka imaan karo in adigu aad samaysid waxa dhinaca qadarta ilaahay kaaga yimaadana de waxaa ka qaban kartid ma laha laakiin mar waliba dadaalka is a must waa loo baahan yahay marka waxyaalaha ma aragtaa cudurkan suu u dhacay dadka badanaa hadda ay dareemayaan oona laga wada hadlin because waxaa la dareemayaa haddaa ka hadashid waxaan inay tahay ma aragtaa wax like dadkii baa ku caynayo ama ma aragtaa waxaa lagu leeyahay oo week baa tahay ama wax jileec baa iska tahay you know baa lagu leeyahay taa baa laga baqaya marka qofkii runtii xaqiiqatan cudurkan suu yahay ama see dareemayaan ogama sheekeeyaan waa iska caadi baa lagu leeyahay iska dhacdaa waa iska caadi so it's important like is waa muhiim inaad ka hadashid waxa aad dareemaysid dhibaatada ma aragta aad dareemaysid daily struggleska maalin waliba aad dareemaysid you know because caruurta for example dadka caruurta lahoo kale hooyo noqo aabba noqo caruur hadday guriga kuu joogto kale ilmihii awal ma aragta iskuul bay tegi jireen iskuulkoodii bay wax kusoo baran jireen caruurtii baa ma aragtaa dad kale bay la interact gareyn jireen ilmo kale la interact gareyn jireen adigana shaqadaada iska tagaysaa ama haddaa guriga joogtid ama haddaa ma aragtaa guriga ka shaqaysid dantaadi baad qabsanaysay laakiin hadda maxaa dhacay gurigii baa la wada fadhiyaa waalidkii guriguu fadhiyaa caruurtii gurigay fadhiyaan haye gurigaasi unbaa ma aragtaa maanta o dhan lagu qolkaa yaroo maaragta gurigaa yaroo 4 cornerka ah oo boxka ah baa lagu wada jiraa marka maxaa qofkii ku dhacayo qofkii waxaa ku dhacayo depression baa ku dhacayo neejab baa ku dhacayso waxaa ku dhacayo walwal badan anxiety baa ku dhacayso marka muxuu ka qaban karaa muxuu ka samayn karaa qofka waxaa marka loo baahan yahay inaad horta first of all waxaasi aad dareentid inay jirto oo dad badan ku dhacaan haddii adiga aad dareemtid depressionna has dhihin anigu muslim baan ahay depression seen u dareemaya soo muslimka bini aadam maahan waxaasi waa ma aragtaa waa aqli xumo wax kasta oo qof bini aadana ilaahay subxaanahu wa ta'aala uu ku dhacayo uu kugu dhici karaa adigana wayna ku dhacdaa dadka marka inaad iska dhitro ma fiicno marka waxyaalaha aad samayn kartid maxaa ka mid ah sida ma aragtaa depressionkaasi allahumma salli ala maxamed bal wax yar sug sida marka depressionkaasi iyo welwelka iyo anxietyga iyo waxyaalaha aad dareemaysid oo dee xaqiiqatan dhab ah inaad dareemtid waaba muhiim you have to haddii aadan dareemin bini aadama ma tihda alien baa tahay marka maxaa samayn kartaa sida ma aragtaa waxaasi aan kugu badanin
so that you don't get stuck meeshaas isaadan maaragtaa ugu dhigin oo meeshii aadan fadhiisan. maxaa samayn kartaa? waxyaalaha samayn kartid waxaa ka mid ah subaxii markaa soo kacadid, subaxii soo kacadid 3 wax oo adigu aa maaragta u mahad celinaysid ka fikir. horey saa uga soo kacdo telefonkaada ha ku boodin, saa indhaha saa u furtay ha ku boodin. markaa soo kacdid ducayso, subaxay ducada la akhristo ya subxaana alladii maxay ahayd ducada waa iga dhuntay idinka aad daawanaysin taas waa iga dhumaysaa. maxay ahayd alxamdu lilahi alladii axyaana bacda maa amaatina wa ilayhi nushuur. ama ducooyin badan baa jirto hadda waa la daawanayaa oo maaragta wixii dhan baa iga kala dhac noqday. laakiin the main thing is 3 wax oo aad thankful u tahay. 3 wax horta notice garay. 3 wax markaasaa indhaa u furtid dareen acknowledge garay indhahayna horta furtayba oo alxamdulillah ilaahay nafta kugu soo celiyey. ilaa naftaan markaa aa hurday way kaa maqneed, ilaahay subxaana wa tacaala kuu soo celiyey alxamdulillahi rabbilcaalamiin u dhah. nafti baa lagu soo celiyey subax weliba aa kacdid. that's something gratitude inaad samayso ay muhiim tahay. acknowledge it. haye indhaha markaa kala furtid fiiri daaqada fiiri. maxaan ku dhaha daaqada ku xiran fiiri. banaanka haddaa gaariyaasha banaanka ama maxaan ku dhahaa allahuma salli calaa maxamed gaariga banaanka dadka banaanka ka qaylinayo shimbiraha notice garay waxaa si dareen because gratitude-kay ka mid tahay being thankful being shukriga ilaahay aad celinaysid bay ka mid tahay. you have to subaxii inaad ku bilaadid your day maalintaadii maalin mataqaanaa fiican oo positive ah. you have to get your day started with a positive mataqaanaa note. waa positive wax ah mindset waa inaa aad ku bilaadaa. haye waxaa kale aad notice garaysaa lugahaadii oo kale, hoos lugahaadii oo kale, sariirtii aad ku jiifsid oo kale, bustaha ku kor saaran oo kale, ama qofka ku ag jiifo ama adiga jirkaadii dareen. haye kadib markaa soo kacdid qobeyso, subax weliba qobeyso, salaada fajarka ku bilaab. haddii aadan salaada tukanina ilaahay bari inuu ilaahay kuu dhib yarayo. salaadaada waqti qaado, haddii aad tukatid waqti qaado, unsi yar guriga ku shido, foox yar guriga ku shido ya qobeyso waqti qaado. you have to know waqti qaadatid if you want to get through this. haddaad doonaysid waxaan inaa maaragta positive way haddii kale depression xun baa kugu dhacayo adeernaan. ilmahana ma korsan kartid haddaa ilmo leedahay. haddii kale ilmo lehenoo 2 qof oo guri isu nooltay idinkii baa sanacaysiin. haddaa keligaada nooshahayn adigii baa sanacaysa, naftaadii baa nacaysaa, col ku noqonaysaa because adduunka oo dhan baa la wada xiray saaxib. meel u dhaqaaqaysa male. waa dhaqaaqi kartaa laakiin not like the way that you used to be before. so waa inaad samaysaa salaada kadib ducayso. duca yar waqtiga hadduu kugu yaraya wax yar 5 daqiiqo 2 daqiiqo you know positive mindset baa loo baahan yahay. you have to win the morning. subaxii waa inaad win garaysaa. haddii aadan win garaynin subaxa your whole day maalintaasoo dhan waxbaa kaa qasan ya. midda kale waxaa samayn karta waxay tahay banaanka tag soo lugay 30 daqiiqo. hadday waqti aadan haysanin 10 daqiiqo. hadday qabow tahay baraf iyo balaayo iyo maaragta roob socdo 5 daqiiqo banaanka waa inaad u baxdaa. laakiin you have to get a fresh air 15 minutes oo kale haddii aad samayn kartid the perfect way because marka aad lugeynaysid maxaan ku dhaha chemicalska jirkaada uu soo daadinayo oo maxaan ku dhahaa your brain wave waxyaalahan oo dhan ma aragta you feel good moodkaadii baa maaragta kor u kacayo positive baa dareemaysaa mindsetkaadii maskaxdaadii ma aragta waxaad dareemaysaa kaala arag kaliya la-ab. haye maxaa kale oo samayn kartaa wax ma aragta meaningful samay adiga. wax ma aragta adiga happiness ku keenayo adiga. wax ma aragta adigu ku farxasiinayo. qof caawi, qof wax u sameey. dad qofkii daadan u tagi karin telefoonka uu hebel ii war ma fiican tahay ma nabad qabtaa dadka weydiisay yihiin. naftaaduna ka fikirin. naftaadii inaad ka fikirto waa muhiim laakiin do something also that is meaningful. wax fiican oo qof kale aad u sameynaysid because that's gonna make you feel good about yourself. adigii baa dareemayso maarta wax wanaagsan markaa samaysid act of kindness wax wanaaga markaa samaysid. 1 waxay ku noqonaysaa ajar. 2 waxay ku noqonaysaa adigii baa dareemayso
maasha allah positive baa dareemaysaa. saddex qofkii aa caawisay baa ma aragtaa because adigii uuna waxba kaa baahneen iska caawisay wuxuu dareemayaa kaala arag the whole day baa maaragtaa maasha allah aad ka dhigaysaa. qofkii marka muxuu sameynaya in return because waa contagious kindness. waxa wanaagsan aa samaynaysa waa contagious. qofkii aa caawisa ama qofkii wuxuu samaysa qof kale sii samaynaya wuxuu sameynaya wax wanaagsan. maskaxdaadii ma aragtaa intaa tv-ga maanta oo dhan aad daawata news coronaviruska iyo talaal baa soo baxay iyo waxaan baa soo baxay iyo sanadka soo socda saan bay noqonaysaa iyo balaayi waxaasi ha isku mashquulinin. waxa dhacayo ilaahay kuu qoro ma weynaysid. of course stay informed. wax baro waxa ma aragtaa laakiin constantly maanta oo dhan 30 minutes hadda for example matalan kasoo qaad 30 daqiiqo oo news aad daawatay oo ka hadlayo corona iyo ma aragtaa dhibaatada dadka u keenay iyo cudurka hadda suu usii xumaaday inta qof uu sii dilayo iyo inta qof uu ma iyo haddaa samayso 30 daqiiqo oo adiga waxa jecesha aad dhegaysatid music ha noqdo quraan ha noqdo qof ha la sheekaysato ha noqdo wax adiga ma aragtaa happiness kuu keenayo isha midkaad ka dareemaysa after that 30 minutes 30 daqiiqo markuu dhamaado midkeebaa maaragtaa ku caraysiinaya ama midkeebaa happy kaa dhigayo. waa inaa ma aragtaa aad ka fikirta waxaasoo dhan. waxaan garbageka ee newska soo udhigayaan oo maanta dhan fear mongerinka cabsida egoy ku dhadeer ma shaqeynaysa sheekadaasiya. haye midda kale maxay ahayd war wax baa soo qorqorta waa yara ku cusbaa meesha caadi iska dhiga. may wallahi seriously though on a serious note though wallahi waxaan cudurkan waa cudur mataqaanaa like aniga for example waxaan dareemay like really down you know because ilmihii baa guriga ii joogo caruurtii baa guriga ii joogto. hey ayagii baa maartaa kuleeyin hooyo I miss my friends I can't go out this is so you know like this is so hard. ilaa march bay guriga ii joogaan. I'm sure idinkana guriga idin joogaan ilaa march bishii 3 dadka Mareykan weliba joogo you know so it's really difficult. marka waa inaa ma aragtaa handle garaysa hooyo haddaa tahay guriga joogto haddaa tahay hooyo single mother ah haddaa tahay hooyo ma aragtaa oo single mother ahaan oo xaas ah still Soomaali haddaa tahay single mother baa tahay hadduu nin guriga ku joogay haddii kale saaxib runta haddii la isku sheego ilmahaasi qofka la joogo maanta oo dhan adiga weeyaan qof kale ma aha. marka that's another topic off topic yana noqonayna. marka you have to be able adiga maskaxdaadii you gotta be able to handle things inaa maskaxdaada adiga aad maarta mar waliba on top of it aad noqotaa so that ilmahaadii you can help them to cope with this pandemic saa uga caawisid markay ay dareemayaan ayaga maarta markay dareemayaan like lonely markay dareemayaan isolations because asxaabtooda mayna tegin mayna dugsi lama tagayo. hey school ma aragtaa oo maarta online-ka ma ahane laakiin physically waa human nature-ka ilaahay subxaanahu watacaala baa noogu talagelay inaa maarta other human beings aan la interact gareeno. mana loogu talagelin island yar inaa maaragtaa nala fadhiisiyo oo keligeena unaan maartaa iska joogno you know human interactions is very important. laakiin dadka maaragtaa oo taxadirayo oo doonayno cudurka inuu sii fido oo dadka kalena ay ka ilaalinayaan they're doing the best they can gurigooda iska joogaan unless wax qasab banaanka u baxayaan. marka waxyaalaha muhiimka ah waa inaa maaragta ilmahaada intaa qaadatid adiga iyo caruurtaada iyo familkiina inaa baxdiin maaragta weekendigoo kale banaanka you have to walk you have to get in nature you have to inaa maaragta caruurta banaanka usoo bixisaa ay nafisaan adigii aad nafistid inaa maaragta aad walking aad samaysid. hey asxaabtaadii la hadal telefoonka oo la hadal maxaan ku dhaha video call samay zoom call samay qof kale arag. it's very important to do all of those things. newskana maaragta iska yaray waxa weeyaan wuxuu faa'iido keenaya ma laha. work on like breathing you know like markaad dareentid anxiety badan walwal badan ku soo galay markaad dareentid waqti yar qaado neefso you know like just adiga neeftaada maaragta markay soo baxayso iyo markaa qaadanaysid dareen how it feels. wax adiga aad jeceshahay oo creative ahna samey maskaxdaada always busy ka dhig active ka dhig. of course guriga maaragta la joogaa gurigaadi baa hagaajisanaysaa
ilmahaada cunto u karsanaysaa waa shaqaysanaysaa waxaasoo dhan waa muhiim waa loo baahan yahay lakin you have to do something creative for yourself so that you don't get in this habit of depression iyo anxiety iyo walwal wax adiga aad jeceshahay samey wuxuu rabo ha ahaado adaa og qof waliba dooqoodii maarata iyo waxay sameeyaan marka asxaabay allahumma salli ala maxamed sheekada intaasi bay ku ekaanaysaa pandemickan waa ma aragtaa ilaahay hana dhaafiyo laakiin you have to be physically active you have to banaanka inaad u baxdid dadka la sheekayso maxaan ku dhahaa isolation keligaa isku sameynin and do the best you can it's very very hard weliba hooyooyinka maarta singleka ah oo caruurta keligoodu korinayaan oo guriga la joogaan wallahi wax arrin dhib yara ma ahan jihaad weeyaan waa jihaad because ilmahaada la struggle gareynaysaa emotionskoodii waa inaad handle garaysaa adigii emotionskaada maalin baa jirto oo waxba doonayna inaad samaysid gurigii baa isku dhex yaalo waxba ma rabto inaad samaysid and you know maalimahaasoo kale adiga ma aragtaa ha isdhihin oo aniga maxaan ku dhahaa maxaa waxaan u sameyn lahay iyo maxaa iga maqan ha dhihin you're dealing with so much allow yourself to feel that maarta one of those days maarta ay kaa qasan tahay say okay you know what this is my body telling me I need to relax waa jirkaadi baa kuu sheegay oo ku leeyahay landheere caadi iska dhig maanta oo dhan baa shaqaynaysa sida dameerka oo kale ilmo yar baa haysataa oo guriga kuu joogo oo iskuul tegin maarta aad homeschooling u samaysid aad cunto u karisid aad wax waliba u samaysid aad soo shaqaysid ma mashiin baa ta keligaa baa tahay caadi iska dhig maalinta ay kaa qasan tahay hays canaadin hays dhihin maarta maxaa waxaan u sameyn lahay iyo why am I so tired it's okay it's important baarigaadi marmar dadka qaar baa jiro oo mar waliba ayaga shaqo anaa ka mid ah dadkaasi mar waliba I want to be active and moving and going and things like that but sometimes my body just says listen sahib this is not working we're tired iga fadhiiso iga naso so markaasoo kale aniga for example waxaan dareemaa guilty I'm like oh I gotta get up I gotta go do this I gotta go do that but I have to say to myself no it's okay my body is telling me that I'm tired so I have to respect my body and I have to not be mean to myself and be kind you know marka kindness is very important also iska shaqeey mar waliba inaa maarta wax wanaagsan isku tiraahdo maalinta maarta you getting everything done on your schedule kaadi maalintaasi iyo maalinta maarta you're not getting nothing done except waking up you have to be kind both of those times you need that kindness to yourself adiga marka asxaabay aad baan idiin salaamay laan dheeryaal maxaan ku dhahaa aad i dhegaysateen ii sheega haddaad doonaysiin barnaamij kale topic kale aan ka hadalo the next topic commentka igu soo tuura like dhac ku siiya shareka dhac ku siiya laan dheeryaal I know dad wanaagsan baad tihiin waxaasina idin sheegaba ma ahan ma taqaaniina kaliya laab asxaabtiinina barnaamijkan u sii fidiya please waan idin barinayaa laan dheeryaal come on support siiya dee intaan oo maarata maasha allah yeah laan dheero banaanka dega aad baan idin salaamayaa salaam wanaagsan baan idin leeyahay salaan qadarid salaan saray salaan gobeed kaliya laab السلام عليكم